qofku laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah markuu yidhaahdo laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin ila allah waxaad qirtay cid dhab loo caabuda oo cibaadadiisu ay xaq tahay inaanu jirin alle mooyaane subxaana wa tacaala maxaa kuu daliila inaad masaladan qirtay waa masale caqadiya qalbiga degta waxaa daliila foodaad dhulka ku haysa asalaa macnaheed waxa weeyaan inaad kibir meel iska dhigtay halkii kuugu qaalisanayd ayaad dhulka dhigaysa addoonsigu waa qofka mu'minkii rabbigii buu ishortaagaa isagoo u khushuucaya oo u tadallulaya oo isu dhuldhigaya oo baryaya oo u sujuudaya oo u rukuucaya walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna leeyahay markaad rukuucdaan facadimuu fiihi rabba caza wajal xadiidkii muslim ku yaala rukuucda markaa ku jirtaan ilaahay weyneeya baa layidhi adigu intaad foorarsato hoos u foorarsato ayaa maxaad leedahay subxaana rabbiya alcadiim waxaa xumo ka hufanoo weyn rabbiga koreeya adna waad isfooraraysay adna waad rukuucday labada low baad haysataa waad foorarsatay dabeetana waxaad leedahay waxaa weyn oo cadiima rabbiga koreeya baad leedahay subxaana wa tacaala nebigu wuxuuna yidhi calayhi salaatu wasalaam waama sujuud fajtahiduu fi ducaa faqaminun an yustajaaba lakum buu nebigu yidhi sujuuddana marka iyada fooda dhulka dhigtaan marka ilaahay baryadiisa badi maxaa laynaga rabaa inu idhaha allahuma laka rakact wabika aamant walaka aslamt khashaca laka samci wa basari wa mukhi wa cadami wa casabi rukuuc oo dhan baa lagu yidhi ilaahay ow adigaan kuu rukuucay adaan kuu rumeeyey adaan kuu hogaansanahay maqalkayga araggayga dhegtayda maskaxdayda laftayda waxayguba ilaahu aday kuu hogaansan yihin dhabaa lagu yidhi culammadu maxay ugu murantaa qofka salaada ka tegay ma gaal baa mise waa muslim waa mustakbir bay leeyihin waa qof diidan inuu ilaahay fooda dhulka u dhigo ibliis muxuu ku gaaloobay astakbarta baa ilahay yidhi am kunta min alcaaliin ilaahu ma waxaan u sujuudaa buu yidhi ana aadam iyadoo anigana adiga abuurtay dab isagana maxay adooba ka abuurtay ilaahay wuxuu ku yidhi astakbarta war miyaad isweynaysay baa layidhi ibliisow am kunta min alcaaliin mise markii horeabaad korraysaye hoos baaba lagu dhigay miyaad isweynaysay baa la leeyahy subxaana wa tacaala idan ilaahay cidda diiddaa waa cid isweynaysay cidda diidda inay sujuuddaa waa cid cibaado diidday sida awgeed baa culammada murankoodu ka taagan yahay ninkii salaad diiday laa ilaaha ila allahdiisu dhab qalbiga uma gelin hadday dhab qalbiga u gashay bay leeyihin waxay ahayd inuu fooda dhulka ku hayo waxay culammadu ku tilmaamaan cibaadadu hal macnay koobsataa bay dhahdaan oo si fiican looga fahmaa waxay dhahdaan aliftiqaaru almutlaq ila allah ayaa lubbulcibaada bay dhahdaan cibaadada beerkeedu ama halka qudha ee laga goosta cibaadada rasmiga ahi waxa weeyaan waa baahi dhammaystiran oo qofku uu muujinayo inuu ilaahay u baahan yahay yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid wardadoow baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacala war idinkaa ilaahay u baahan ilaahayna subxaana wa tacaala huwa alghaniy alxamiid waa allaha deeqtoon ee la mahadiyo nebi muuse markuu cidlada u baxay ee fircoon ka cararay ee xooggiisii wax uu ku cuna waayey ee ceelka intuu habla waraabiyey geedka hoos fadhiistay muxuu yidhi faqaala rabbi innii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir ila wixii aad khayri siisay maanta faqraan kaga sugnay qofku hadduu qirta bay yidhaahdaan inuu ilaahay u baahan yahay subxaana wa tacaala wuxuu noqonayaa inuu noqdo ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirt wa ana awalu lmuslimiin kuku biiraya in mas'aladani ay dhacdo waxay u baahan tahay laba shay waxa weeyaan inaad rumaysato ilaahay weynidiisa subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo qudradiisa awooddiisa iyo rabbinimadiisa inuu rabbi yahay maalik yahay sayid yahay dunidoo dham isaga gacantiisa ku jirto inaad rumaysato kuwii ilaahay caabudi waaye ilaahay muxuu yidhi wamaa qadaru llaha xaqa qadr may weynaynin weynidoo alla mudnaaba ilaahay le isagoo yuhuud ka hadlaya wamaa qadaru llaha xaqa qadri waalardu jamiican qabdatuhu yowma alqiyaamati wasamaawaatu matwiyaatun biyamiini iyadoo dhulkoo dhami baa la leeyahy subxaana wa tacala ilaahay gacantiisa ku jira maalinta qiyaama cirkoo dhanna waa la duubi doono midigtiisa ku duubi waxay culammadu yidhaahdaan waxa kulmiya cibaado waxa weeyaan qofku inuu ilaahay sifaati ilaahiyatihi inuu barto rabbinimadiisa alle subxaana wa tacaala ilaahnimadiisa inaad barataa waxay keenaysaa inaad kalgacalka u gaar yeesho jeclaatid inaad alle la kulantid subxaana wa tacaala u dhowaatid waayo awliyada alle waa kuwa ilaahay u dhow maxaa ilaahay loogu dhowaadaa wuxuu raalli ka yihiyo wuxuu jecelyahy xadiidkii sheegayay ciddii ilaahay awliyadiisa la dagaalantay faqad aadantuhu bilxarb maxaa la tilmaamay subxaana wa tacaala addoonkaygu wax ka fadli badan wax ka fiican iguma dhowaado maxay mima aftaratuha calayh wixii aan ku farad yeelay baa la leeyahy subxaana wa tacaala idan qofka mu'minkii waa qof muujinaya inuu ilaahay u baahan yahay ilaahay jeceliyey subxaana wa tacaala isaga tala saaranayo qofka mu'minkii waa kaa intuu salaad u kacale iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin suurat alfaatixa culammadu waxay yidhahdaan waxay koobsanaysaa mas'alat alxubbi waalrajaa'i waalkhawf oo ah bay leeyihin cibaadadu arkaanta ugu waaweyn ay leedahay cibaadadu waa isdhuldhig wuxuu keenaa bay leeyihin ilahay waxaad isugu dhildhigaysaa cadamadiisa adoo ka cabsanaya iyo adoo rajaynaya
geynayaba weynidiis waxaad jecesho raalli ka tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nimco ku siiyey qof $1 maanta kuu dhiiba hadduu berri kaa soo horbaxana 10 kale kuu dhiiba beriga dambe 100 iska kaa siiya hadduu kuu dhiibo markuu ku arkaba beriga dambe xaggiisa lagaa mari maayo hebel waa nin la arkay oo kale ma habaad leedahay wax siintu ku siiyey baad ku jeclaatay rabbu samaawaat ku nooleeyey ku arsaaqay ku caafimaadiyey ku xoojiyey muslim kaa dhigay ku nimceeyey nimcadiisa lagu jeclaada waxa keenaysa waxa uu maalin walba ku siinaya inaad noqdo ilaahay subxaana wa tacaala mid agtaada lagaga kalgacal badan yahay waxa jira ee kale oo dhan sida awgeed baa qofka mu'minka ah ilaahay subxaana wa tacaala weynidiis uu rumaysan yahay